بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ديال كسر دواد برنامج كنا العاوي أو دارن أو كصابصن نرت مكوه رساه وعين هذا الضعفاء وحى الكان برنامج كعاو مرتنا وقع إنجنير عبد الله سعيد شيخ حسن إنجنير كعاو سكوا ونوها للدونا أرمها خيرات كالصومالية جارهان شدالك اللي هذا الصومالي ولا قد حلي أو هذا مرده ولا صو صار يا مركا إنشنا كسر دويرة يا سؤال بدنا ويدونا إنشنا سؤال دو. السلام عليكم. عليكم السلام وأندو هاي نوحي ورئيسنا يا صاحبكي عبد الله عبد الرزاق آدن آدي آد بومه سنية هاي شدالك الصومالية يأرم بدن الصومالية وبعدها ويجرن إنشنا بدنا واحد مقالنا الصومالي واحد كتير الشدال هرتم رمبا مسوا بين shidaal Soomaaliya uu ku jira iyo kheyraad kale tiro badan labadaba way hadda noo faahfaahiso shidaalkaasi gaar ahaan xagee laga helaa Soomaaliya waxa la sheegaa badda iyo bariga labadaba waa laga helaa waa sax laakiin waxa weeyaan gaar ahaan eeriyadee dhulkee goboladee dhinacee ayaa shidaalka ugu badan lagu tuhmayaa Soomaaliya gudaheeda mid okay waxa lagu tuhmayaa shidaalka ugu badan Soomaaliya badda lagu tuhmayaa shidaalka labaad wuxuu saaran yahay dhulka badaha la ologale ama badaha la deriska ah buu saaran yahay sida ugu badan areadan waxa loo badiyaa inuu saaran yahay badda cas waa lagu sheegaa shidaal inuu ku jiro badan badda Hindiyana uu ku jira xadka kale ee dhulka Soomaaliyana uu ku jira sidoo kale gaasas iyo saliido baa ku jira وانا الحقيقي وانت اسو باريس او الا باريس saddexaad ayaa hadda lagu wadaa ma santahay injineeri waan ku mahad celinayaa mar kale waxa kale oo ku weydiin lahaa qiyaastii imisa lagu qiyaasaa intee intaas oo wax la sheegay lagu xisaabsho intaas oo metrikistan oo ma barmiil marka shidaalka ku jira Soomaaliya qiyaastii imisa lagu qiyaasaa qiyaastaas lama hayo oo hadda qiyaas 100% la hayo ma jiro laakiin sida la hayo maalin kasta Soomaaliya ilaa 4 trilyan oo fuusto ayaa ka soo bixi kara ilaa 5 trilyan oo fuusto ama barmiil iyo wax ka badan ayaa daily uga soo bixi kara hadii shidaalka Soomaaliya la isticmaalo ama qayb kamida ka soo bixi kara sida ama baasiin ama naafto ama gas mid kamida adu ka soo bixi kara ama saliidaha qaar kamida marka aad buu u badan yahay waa la oran karaa kama faqri karno hadeenu aqligeena wax ku maari lahayn aynu weyno maahan waayahay aad baa ma santaa mar kale waxaan kale ku weydiinayaa shidaalkani muxuu faa'iido ah oo u leeyahay Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed hadii la soo saaro macnaha muxuu ka bedelayaa xaalada Soomaaliya dhaqaale ahaan gaar ahaan dhaqaale ahaan muxuu ka bedelayaa waa erey wanaagsan dhaqaale ahaan waxbuu ka bedelayaa sababtoo ah shidaalku nolosha adduunka inta ugu badan waa gas iyo waxay ku dhisan tahay shidaal gawaaridu shidaal bay ku socotaa raashinka hadda gas baa lagu karsadaa saliidahu waxyaalo badan bay kheyraadka awoodo badan bay ku leeyihiin marka Soomaaliya mid haday noqoto waxba kama faa'iidi karto laakiin mid haday noqoto waxbay ka faa'iidi kartaa simple midda aan sheegayo haday Soomaaliya noqoto kuwa kheyraadka ku dirira xabad isu qaata isku laaya isku qabyaaladeeya isku qabsada waxa ka dilaacaya Soomaaliya maafiyo aad u tiro badan weligeedna dagaal u bay ku jiraysaa kheyraadkeedana adalaasti marka ugu dambayso waxa qaadan doona ummadaha kale baa ka macaashi doona ayagu way ku leewan doonaan way isku leyn karaan kaliya maana dheef kale iyo saameyn kale ma yeelanayaan mid haday noqdaan madaxweyne fiican haday lahaadaan Soomaalidu xisaab iyo daacadnimo iyo isu dabacsanaan iyo wada shaqeyn ay Soomaalidu ku shaqeyso qodob fiican bay ka gaari karaan sida inay dhaqaale aan caadi ahayn baa shidaalku hadda leeyahay dhaqaalahaas oo ah shidaalku waa shayga ugu sareeya adduunka oo hadda la iibsado marka Soomaaliya dhaqaale ahaan iyo bilic ahaan iyo dad ahaan iyo magac ahaan
intaba way u kori kadhaa dunida wadanada waxay ku biiri kadhaa dee adduunka haddii doonto wadanka koowaad ama wadanka labaad ee dhaqaalaha caalamka ayay noqon kartaa sidoo kale faa'iidooyin kale oo Soomaaliya si caawinayo oo ay leedahay baa jira aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa wareysigan xogaa iska soo koobno waxaan ku weydiinayaa su'aasha ugu dambaysa oo ah yaa xaq u leh in shidaalka Soomaaliya ay soo saarto oo ay saxiixdo ama shirkad kula heshiiso Turkiya ama cid kale kula heshiiso yaa iska qarinka ama amarka yaa bixin kara in shidaalka la soo saaro Soomaaliya waa su'aal wanaagsan aad baad u mahadsan tahay qalinka shidaalka Soomaaliya waxa iska leh marka koowaad horta dawladda Soomaaliya markaas ka talisa madaxweynaha xilliga jooga iyo baarlamaanka ayaa saxiixa iska leh waxayna kala tashanayaan deegaanka shidaalka laga saarayo maamul goboleedka deegaankaas ka shaqeeya iyo salaadiinta qoysaska halka jooga maamula oo ugu sareeya bay la tashanayaan marka salaadiintaas iyo maamul goboleedka la soo tashto kadibna dawladda dhexe madaxweynaheeda iyo ra'iisul wasaaraheeda iyo wasiirka marka macdanta iyo tamarta iyo bawada tashi ka yeelanaya kadibna kiiska wadana kala loo geenaya hadii wadanada xoogaa la subugo oo la arko inuu dhow yahay baarlamaanka ayaa la marinaya baarlamaanka ayaana ansixinaya sidaas ayaana kiisku ku dhaqan gali karaa waayahay hal su'aal kale rabaan ku weydiiyo kor aan raacsado su'aashaas waxa weeyaan Soomaaliya way ballaaran tahay waa run waa 18 gobol weeyaan annagu hadda waxaan joognaa mudug gaar ahaan waxaan joognaa galbeedka mudug shidaal ma leeyahay mise ma lahan galbeedka mudug shidaal inuu leeyahay way dhici kartaa laakiin galbeedka mudug meelo ku beegan xagga xaradheere iyo kaga beegan iyo markii loo eego xagga dawlad deegaanka dhulkan Soomaaliyeed ee Itoobiya ay hadda awood naga haysato markii labada dhinac la isaga eego labada dhinacba shidaal baa lagu sheegay xagga Soomaaliland markii loo gudbana shidaal baa lagu sheegay sidaas solo kale sidoo kale oo anaga nagu sii beega shidaal baa lagu sheegay dabcan inaguna engineer waxaan ka hadlayaa dabcan marka inaguna waynu leenahay shidaal laakiin lama baarin baan u maleynayaa cadeyn rasmi uma hayo in la baarina way dhici kartaa waxaan ka hadlayaa galdogob baan joognaa Soomaaliya aad iyo aad galdogob iyo agaarkeeda ka mid tahay meelaha shidaalka Soomaaliya laga helay oo lagu tuhmayo ma ka mid tahay bas ka mid ma aha meelaha lagu tuhmayo waa ka mid laakiin meelaha cadeyn rasmi loo hayo ma waayahay kaasina wuxuu ahaa injineer Cabdullaahi Siciid Sheekh Xasan oo caawa martin loogu ah barnaamijkeena wuxuu ka hadlayay khayraadka Soomaaliya dabcan Soomaaliya khayraad fara badan bay leedahay khayraadka xoolaha beeraha macdanta shidaalka marka caawa waxaan ka hadalnay khayraadka shidaalka iyo sida looga faa'iideysan karo iyo xogo kale oo ku saabsan injineerku noo dhexgeliyay insha Allah barnaamijyada soo socda waxaan ka hadli doonaa khayraadada kale sida khayraadka xoolaha si looga faa'iideysan lahaa khayraadka beeraha macaadinta oo aad u yaqaan injineerku maadaama cilmiga geology ku takhasusay insha Allah arimahaas waxaan u hadli doonaa barnaamijyada soo socda insha Allah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.